رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام أحاديث رمضان waa barnaamij aynu ku soo qaadan doonno qaar ka mid a axaadiidta nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalama ee uu uga hadlay soonka ama ramadaanta. can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه muttafaqun calayh. waxaa laga wariyey abu hurayrata radia allaahu canhu in uu yidhi wuxuu yidhi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalam qofkii bisha ramadaan sooma isagoo aaminsan inuu farad ku yahay lagana ajarsiinayo kana ajartirsanaya oo alle darti keliya u samaynaya waa loo dhaafaa wixii dembi ah ee u soo hormaray. qofkii bisha ramadaan salaad u istaaga isagoo aaminsan waa hameenkiie kana ajartirsanaya oo alle darti keliya u samaynaya waa loo dhaafaa wixii dembi ah ee u soo hormaray. qofkii salaad u istaaga habeenka laylatulqadriga isagoo aaminsan kana ajartirsanaya oo alle darti keliya u samaynaya waa loo dhaafaa wixii dembi ah ee u soo hormaray. waxaa soo saaridda xadiidka isku raacay bukhaari iyo muslim. u fiirso, waa soomay wuxuuna ku soomay aaminsanaan iyo iimaan wuxuuna ajarkiisa ka rajaynayaa alleh subxaanahu wa tacaala. saddexdaas oo uu si sax ah ula yimid ayaa sabab ugu noqday in dembigiisii hore loo dhaafo. sidoo kale alle ayuu u tukaday iyadoo ay aaminsanaan iyo iimaanba la socdaan wuxuuna ajarkiisa ka rajaynayaa alleh. saddexdaas oo iyadana uu isku darsaday ayaa iyaguna sabab ugu noqday in dembigiisii hore loo dhaafo. sidoo kale istaagidda uu istaagay hameenka laylatulqadarka oo uu ilaahay waafajiyey isaga oo aaminsan ajarkeedana tirsanaya ayaa dembigiisii hore loogu dhaafay. ogow haddii midkood dembigii loogu dhaafay inta kale alleh ka dayici maayo ee waa loo hayaa ajarkaase. ina allaha laa yudiicu ajra man axsana camala. رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهله بالصيام